شمائل الرسول ذي الخلق النبيل جاءت بوصف الصحب على لسان الحب معظم محفود مفخم محشود. saxaabada ridwaanullaahi calayhim manaaqibta ay lahaayeen waxaa ka mid ah inay noo xafideen wax weliba oo la xidhiira rasuulka sala allahu calayhi wasalam. adduunyadana sooma marin qof la diiwaan geliyey goobtii uu fadhiistay, halkii uu ku tukaday, dhoola caddayntiisa iyo wax kasta oo ka mid ah habdhaqankiisa, si la mid ah sida ay saxaabadu u diiwaan geliyeen nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam. رموشه طويلة عيونه كحيل شمائل الرسول بالخلق النبيل. waxyaabaha ay saxaabadu ka diiwaangeliyeen nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid a cuntooyinkii uu jeclaa nebiga. cuntaduna waxa ay u arkayeen jiilkaasi inay tahay mid loogu xoogaysto cibaadaadka allah. hadiga nebiga ee cuntadana waxa uu ahaa quudka uu maalinkaas cuno, isagoo alla weydiistay in cuntada aalkiisa ka dhiga mid quud oo keliya ah. ibnulqayim oo tilmaamaya hadiga nebiga ee cuntada waxa uu leeyahay, habdhaqanka nebiga ee cuntada wuxuu ahaa inaanu celin raashin loo keenay, dadka ku dhiban dalabka raashin aan oolin. cuntadii wanaagsan ee loo keeno waa uu cuni jiray ilaa uu dhibsada mooye, sidaasina uga tago isagoo aan taxriimin. weligiisna cunto muu caayin nebiga. haddii uu jeclaado wuu cuni jiray, hadduu dhibsadana wuu ka tegi jiray. hadyigiisana waxaa ka mid ahaa inuu cuno wixii fudud ee yaalla. فداه أمي والأب ذو هيبة ورفق ساد جميع الخلق أعلى الإله قدره في الشرح زكي. caadada iyo habdhaqanka nebiga kama mid ahayn inuu ku gaabsado hal raashin oo keliya, oo uu noloshiisa oo idil isaga oo keliya quuto, maxaa yeelay taasi waxa ay ka hor imaanaysaa aadanaha iyo abuurkiisa, waxaana laga dhaxlaa cudurro sidaba ay dhaqaatiirtu sheegeen. sidaasi darteed cuntada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa ay ahayd mid kala duwan oo ah midda markaasi la helayo. waxa uu lahaa dabci saamaxaad badan, waxa uu la cuntayn jiray ehelkiisa iyo saxaabadiisa, waxaana dhici jirtay in faakihada ama waxyaabaha macmacaanka ah ee uu rasuulku cunayo uu la qaybsan jiray dadka ay isku majliska fadhiyaan. haddaba maxay ahaayeen cuntooyinkii uu jeclaa nebiga sala allahu calayhi wasalam, kuna cad axaadiista laga wariyey saxaabada. casalka ama malabka ayaa ka mid a waxyaabaha uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam aadka u jeclaa. hooye caaisha radiallaahu canha waxa ay leedahay, nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu jeclaa macmacaanka iyo malabka. timirta ayaa sidoo kale ka mid ahayd cuntooyinka uu jeclaa nebiga sala allahu calayhi wasalam, waxaana suubanaha uu yidhi, caashoy guri aanay timir oolin waa guri ay dadkiisu gaajaysan yihiin. timirtu waxay uga duganeed cuntooyinka kale nebiga sala allahu calayhi wasalam, oo waxayba ahayd cuntada ugu badan ee gurigiisa laga cuno. hooye caaisha waxa ay leedahay, waxa ayna soo mari jirtay 3 bilood oo aan wax dab ah laga shidin guryaha nebiga sala allahu calayhi wasalam. curwa ibnu zubeer ayaa ku yidhi, habar yar maxaad ku noolaydeen marka? waxay tiri hooye caaisha, waxaan ku nooleen 2 madmadow oo ah timirta iyo biyaha. wuxuu kaloo nebiga sala allahu calayhi wasalam aad u jeclaa khalka, waxaana laga wariyey inuu yidhi, iidaan waxaa ugu wanaagsan khalka. saliid zaytuunka ayaa ka mid ahayd waxyaabaha uu nebiga sala allahu calayhi wasalam aadka u jeclaa, saliid ahaanna uu isticmaali jiray. wuxuuna nebiga sala allahu calayhi wasalam dhihi jiray, cuna zaytuunka kuna subkada, waa geed barakaysan ee. qubuska laga sameeye qamadiga ayaa ka mid a cuntooyinka uu jeclaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam. hooye caaisha waxay leedahay, qoyska nebiga sala allahu calayhi wasalam 2 maalin oo isku xigta kama dhargin qamadi ilaa uu rasuulka geeriyooday. caanaha xoolaha ayaa iyaguna ahaa cuntooyinka ugu badan iyo sharaabka uu isticmaala nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam. safarkii al-israa walmicraaj ayuuna rasuulku doortay inuu cabo caanaha. markaas baa lagu yidhi, adiga iyo ummadaaduba waxaad waafaqdeen fidrada. cuntooyinka kale ee uu nebiga sala allahu calayhi wasalam jeclaa waxaa ka mid ah farmaajada. ibnu cumar waxa uu leeyahay, nebiga sala allahu calayhi wasalam oo jooga tabuuk ayaa loo keenay farmaajo. markaas buu mindi dalbaday, bisinkana u qabtay oo uu kala jaray. hilibka ayaa sidoo kale ka mid a waxyaabaha uu nebiga sala allahu calayhi wasalam aadka u jeclaa. axaadiis dhowr ah ayaana tilmaamaysa nebiga oo xoolo qashay, deriskana u qaybinaya isagoo loo keenay. wuxuuna inta badan jeclaa hilibka qaybta garabka. hariidka ama subaga oo khubus ama hilib lagu daro ayaa ka mid a cuntooyinka uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam isticmaali jiray. ibnu cabbaas radiallaahu canhuma wuxuu leeyahay, cuntooyinka uu nebigu ugu jeclaa waa hariidka qubuska lagu daray. cuntooyinka kale ee uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam cunay waxaa ka mid a hilibka bakaylaha, digaagadda, bocorka iyo kuwo kale.
نبيلي جاءت بوصف الصحب على لسان الحب معظم محفود مفخم محشود اللون حلو أزهر والحسن بدر أنور منظره وسيم وجسمه قسيم قوامه مربوع وقوله مسموع. haddaba waxaa wanaagsan inaan dooqeenna xagga cuntada ah uga dayana nebiga sala allahu calayhi wasalam. anas ibnu maalig radiallaahu canhu wuxuu leeyahay rasuulka ayaa looga yeedhay martiqaad aniguna waan raacay maraq uu bocor ku jiro ayaana naloo keenay nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaana cunay bocorka aad ayuuna u cajabiyey. anas wuxuu leeyahay tan iyo maalintaas waan jeclahay bocorka. بهمة وأسرع وضحة في صوته وقدوة في سمته البشر طبعا فيه وربنا يرضيه يبدأ بالتحية يحكم بالسوية الريح عرف طيب والجود غيث صيب معلم مؤدب في مزحه لا يكذب شمائل الرسول